halkani waa Iles Online halka aad kala socotaan daawadayaal. Waxaan idin soo gudbin doonaa caawa barnaamijku aadan maadaama maanta ay ahayd 21 Oktoobar xilligii uu xukunka la wareegay madaxweynihii hore ee geeriyooday Sareegaas Jaala Maxamed Siyaad Barre sanadii 1969. daawadayaal ku soo dhawaada taariikhda madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre. Major General Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay degmada Shilaabo ee sanadii 1906 bishii Oktoobar 1919. Major General Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa hogaamiye awood badan oo military ah. Wuxuu noqday madaxweynihii Soomaaliya 1969 kadib markii afgambi military ay ku qabsatay xukuumaddiisii. Major Maxamed Siyaad Barre asagoo 10 jir ah ayay dhinteen labadiisa waalid. Qoyskoodii wuxuu ahaa xoolo dhaqato, geel badan lahaa ayuu qoyskoodii lahaayeen. Runtii nolol wanaagsan ayuu ku soo barbaaray. wuxuu ahaa nin qiimo weyn ku leh qoyska xagga talada iyo xagga go'aan qaadashada intaba. wuxuu ahaa Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu go'aan ku gaaray in uu mustaqbal wanaagsan gaaro. magaalada ugu horeysay oo uu soo galay waxa ay ahayd magaalada Luuq ee gobolka Gedo 1930. Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu dugsiga hoose dhexe kaga baxay degmada Luuq ee gobolka Gedo sanadii 1936. wuxuu dugsiga sare u aaday magaalada Muqdisho. Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka mid noqday militariga Soomaaliya sanadii 1940. British Military Administration of Somalia wuxuu sheegtay inuu ku dhashay Garbahaare si loogu qoro militariga. Maxamed Siyaad Barre wuxuu kuraas waxbarasho ah u aaday dugsiga tababarka militariga ee ku yaalay Nakuru, Kenya sanadii 1943. 1950 Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu waxbarasho u aaday oo 2 sano ah wadanka Talyaaniga Carbieri Police School Administration. 1960 wuxuu kuraas waxbarasho u aaday midowga Soviet isagoo soo bartay abukaatanimo. Major Maxamed Siyaad Barre General Maxamed Siyaad Barre wuxuu noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sanadii 1965. Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa mas'uul ilaaliye sharciga iyo nidaamka dalka u yeelay. Maxamed Siyaad Barre kacaanka markii ay xukuumaddiisa la wareegtay ayaa waxaa jiray hay'ado kala duwan ay dadyoga qaar ay ku dhaliili jireen in ay hoos imaan jireen gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska. wax walbana waxa ay dawladdiisa go'aan ku gaartay in ay u wareejiso amba uu noqdo wax shacabka Soomaaliyeed gacmahooda dib ugu soo laabto. runtii wuxuu ahaa mas'uul ilaaliye sharciga iyo nidaamka dalka u yeelay. wuxuu sidoo kale ahaa nin ay aad u jeclaayeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed. wuxuu ahaa muxaafid daacad ah oo horay socod u ah isla markaana wadaniyadu ku weyn tahay. Major Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa nin xarago badan, deeqsi ah, codkar ah, go'aan qaadasho dhow. sanadii 1969 markuu qabtay hoggaanka dalka, shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay. waxa ayna ugu sacbatumeen heesooyin kala duwan iyo ay ka mid yihiin Towrada tan barakaysan iyo Guul Wadow Siyaad. haddaba xukuumaddii kacaanka markii ay dalka qabatay sanadii 1969 waxaa dalka Soomaaliya ay bilowday in ay dhaqdhaqaaq dhulkii ka maqnaa Soomaaliya in ay dib ugu soo celiso gacantii gumaysiga. oo ku jiray gacmihii gumaysiga. dhulkaasna waxaa ka mid ahaa dhulka iyo dadka iyo deegaanka ka maqnaa ee sida Ethiopia iyo Kenya ay kala heestaan ayna ku wareejiyeen dawladdii amba xukuumadihii gumaystaha ee dalka soo maray sida Talyaaniga iyo Ingiriisiga.
inkastoo talyaaniga aan Ethiopia xoog ku qabsan laakiin waxaa loo aaneynayaa in ay dowladda Ingiriiska ku wareejisay dowladaha Ethiopia iyo Kenya sanadii 1977 ayaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayagoo garab siinaya jabhadii Soomaali Abow ee xureenta u aaday amba xureenta ku hayay amba dagaalada ay kula jireen ciidankii taliska Mu'angaka Fajista Mingiste Haile Mariam Haile Selassie ayaa waxa ay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ku biireen in ay garab siiyaan xukuumaddaasi jabhadahaasi si dib loogu soo celiyo gacanta xukuumad dhulweynihii Soomaaliya dagaaladii ay la gashay dowladii kacaanka dowladda Ethiopia taliska Mu'angaka Fajista ee halkaasi ka dhisnaa waxa ay keentay in dowladihii Russia ee Soomaaliya kala dhaxaysay nidaamka saaxiibtinimada markii dalka ay ka carareen in Russia ay la soo safato dowladda Ethiopia Cuba sidoo kale waxa ay la soo safatay wadanka Ethiopia dowladaha la soo saftay waxa kamid ah Libya Yementii Koonfureed iyo barigii Jarmalka Soomaaliya ayaa military ahaan u guuleystay laakiin markii awood loo sheegtay ayaa ay ku qasbanaatay inay dib uga soo baxaan guud ahaanba dhulkii ay dagaalada u galeen ama inay xoreeyaan ee Soomaali galbeed ee maanta loo yaqaano kalinka Soomaalida Ethiopia sanada markuu ahaa 1979 ayaa dhaliilo fara badan loo soo jeediyay xukuumadii kacaanka wixii ka dambeeyay 1980kiina xukuumadii Soomaaliya waxa ay dib u milicsatay inay dalka ka curteen jabhado ka soo horjeeda sida SNM Somali National Movement oo waqooyiga Soomaaliya ay ka dhisneed maantana lagu magacaabo Somaliland UAC SNFD iyo jabhado kale oo kala duwan kacaankii 1960 sooqa oo gacanta ku dhigay dalka Soomaaliya wuxuu soo xukumay muddo fara badan waxa uu gaarsiiyay heerka waxbarashada lacag la'aan ah iyo waxyaabo fara badan ummadda Soomaaliyeed loo qabtay dib u dhiska dalka Soomaaliya dib u dhistii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadooyin fara badan ilaa iyo heer jaamacadeed waxa ay dadku wax ku baranayeen lacag la'aan laakiin sanadii 1926 January 1991 ayaa gabagabadii meesha ay ka baxday xukuumadii Maxamed Siyaad Barre xilligan ay magaalada Muqdisho soo galeen jabhadii UAC xukunkana ka tuuray laakiin Soomaaliya ayaa ay ku dhacday ceel dheer ilaa aan su'aal iska weydiinayo goorta ay ka soo baxayso halka ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal halka aad nagala socotaan waa Ilees Online anigoo geelaya idin la socodsiinaya tan is arag maqal dambe waxa sida ay nabadgeliyo